mahadsantiin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin barnaamijka gabagabadiisaan galaynaa madaxweynaha SSC alleenka noogu jiro isagana idil iyo hoodan aad iyo aad baad u mahadsantihiin 100% dhegeystayaal haddana waxaan rabaa in aan idinku soo furo inta ugu dambaysa barnaamijkeena madaxweynaha SSC oo isagana alleenka ku jira Salebaan may maqlaysaa Salebaan kusoo dhow Somali Voices waa gartay Salebaan waxaan rabaa inaan kaa weydiiyo xaaladda SSC intaana ku weydiinin ulajeedooyinkaad halkan u joogtid oo maanta dib u soo cusboonaaday wax ma naga siinaysaa faahfaahina inadeerow waxaan rabaa halkan inaan ka cambaareeyo weerarka faxshnimada leh argagixisada maamulka Siilaanya uu ku soo qaaday deegaamada SSC iyo shacabka SSC shalay saacadu markay ahayd 6 subaxnimo maleeshiyada amarka ka qaadata Siilaanyo ayaa weerar ku soo qaaday 3 meelood oo ka mid ah deegaamada SSC kuna xasuuqday shacab ka tirsan deegaamadaas SSC dhimasho badan u geystay dhaawac badan u geystay dhaxfar badan u geystay waxaan caalamka ka codsanaynaa arrinta inay wax ka qabtaan dambiga halka ka dhacay ka soo horjeeda bini'aadnimadana ay ku qaadaan maamulka iyo ninka hogaamiyaha ka ah ee la yiraahdo Siilaanya waa gartay qasaare intee leeg baa maanta ka dhacay dagaalka ka dhacay sida ay noo soo sheegayaan mas'uuliyiinta maamulka SSC ee halka ku sugan waxaa dhimashadu gaarsiisan tahay ilaa iyo 20 qof dhaawacu wuxuu gaarsiisan yahay 40 ilaa iyo 30,000 oo qofna way barakaceen oo waxay ka qaxeen deegaamadii ay ku sugnaayeen dhinaca kale oo Soomaaliyeed wax dhibaato la idinka soo sheegay ma jirta meesha marayso war kama hayno maleeshiyooyin soo duulay oo ku soo duulay dad shacab ah yaa dhibaatadaas iyo qaxa iyo dhimashada iyo dhaawaca geystay waxaanu ummadda Soomaaliyeed ee nabadda jecel iyo beesha caalamkaba ka codsanaynaa inay arrintaas ka hadlaan wax ka qabtaan dambigeedana saaraan ninkaas dambiilaha ah ee dhibaatadaas geystay adiga madaxweynaha SSC aad tahay maxaad go'aamo aad hadda gaadhay aad qabanaysaa oo aad hadda ku dhaqaaqaysaanayd anagu maamul ahaan waa ka soo horjeednaa dhiig Soomaaliyeed oo daata waxaa maamulkaygu ku salaysan yahay nabadgelyo iyo midnimada Soomaaliyeed ku duuli mayno weerari mayno layna mayno daadinna mayno dhiig Soomaaliyeed waxaan jecelahay in maleeshiyada soo weeraraysa deegaamada SSC haysata deegaamada SSC qaar ka mid ah sida aan u tixgelinayno nabadgelyada ay u tixgeliyaan kana baxaan deegaamadaas joojiyaana weeraradaas argagixisada ah ee ay ku hayaan shacabkayga dagaalka hadda socday oo maanta bilaabmay oo caawa 8 joogsamay saaka aroortiina bilaabmay buuhoodle meel u jirta wax yar ma SSC ciidankeeda ka dagaalamaya mise waxa ka dagaalamaya shacbiga buuhoodle iyo nawaaxigiisa dega ee aan SSC waa garan karaysaa dagaalka ka socda buuhoodle waxa soo qaaday maleeshiyada SNMta sheegata ama isugu yeedha Somaliland waxa lagu soo qaaday shacabka SSC waxa ka dagaalamay oo isdifaacay waa shacabka SSC oo lagu soo weeraray deegaamadii iyo guryahoodii waa gartay la laayay la qixiyay la dhaawacay waxaanu ka dalbaynaa annaga oo ah shacab danaynaya nabadgelyada maamul doonaya in Soomaaliya nabad ku wada noolaato waxaanu ka codsanaynaa beeshaas Soomaaliyeed ee ku soo duushay deegaamadayada in ay ka waantoobaan kana noqdaan deegaamadayadana naga daayaan dhibaatada iyo dhiigga daadanaya ee ay u geysanayaan shacabkeeda ma laga yaabo adigu inaad hadda baxdid aad ku aadid in meelaha in dagaalku ka socdo hadda adigu qurbaha nala joogtaa Minnesota joogtaan waxaa jooga mas'uuliyiin sare oo maamulka SSC ka tirsan waa tagaya waa laabanaya laakiin mas'uuliyiintaasi waxay aaminsan yihiin waxaan aaminsanahay nabad baanu aaminsanahay dooni mayno dagaal Soomaali isku qaado dooni mayno dhiig Soomaaliyeed isku daata waxaanu doonaynaa deegaamada iyo beelaha Soomaaliyeed inay nabadkooda noolaadaan anaga daayay Siilaanya dhibku ku wado caalamkana waxaanu ka codsanaynaa inay arrintaas wax ka qabtaan isu taagaan in ay la hadlaan ninkaana dambiga uu galay dadka uu laayay
kuwa uu dhaawacay kuwa uu qasiyey deegaamada uu dhacay intaba laga hadlo madaxa Saleebaan aad iyo aad baad u mahadsantahay su-aasha ugu dambaysa aan ku weydiinaya wax gacana ma ka hesheen hadday noqoto Puntland ama hadday noqoto dadka deriska la wax gacana oo aanu ka helay Puntland ma jirto mana doonayno inaanu ka helno dooni mayno in lagu noqdo dagaalkii qabiilka ku salaysnaa ee Soomaaliyeed waa gartay aad iyo waxaanu doonaynaa in Soomaalinimadii soo noqoto haddii Siilaanya ka fursan waayo waxa uu wado khasab baa soo celinaysa qabaa'ilkii iyo in qabiil loo noqdo balse ilaa hadda anagu waxaanu ka helay Puntland iyo beelaha kale ee Soomaaliyeed ee walaaladayada ma ay jirto habeeraad aad iyo aad baad u mahadsantahay Saleebaan waqtigii baa naga dhacay marka waxaan rajeynayaa haddii aad weegigan sii joogtid wixii ka soo cusboonaada inaanu dib aan kaaga wareysano haddii alla aad iyo aad baan idin salaamayaa Somali Voice waa mahadsantihiin adaamadan 100% dhegeystayaal halkaas waxaa inoogu dhammaaday barnaamijkan caawa idinku talagalay haddaan nahnay bahda Somali Voice oo idin hogaaminaya Maxamed Wiilwaal barnaamijkan mid lamid waxaan ku kulmi doonaa axadda soo socota haddii alla yiraahdo sidaas iyo nabadgelyo Vietnamese Radio will be up next